nabadgelyo saaxiibayaal kuna soo dhawaada wararka caalamka iyo Soomaalida qodobada ugu waaweyn ee warkayaga aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah wararkii ugu dambeeyay dawladda Kenya oo ku jabtay go'aankii maxkamadda ee ku aadaneed kiiska badda Soomaaliya waxaana ay shaacisay in ciidankii ugu badnaa ay u dirayso halka lagu muransan yahay iyadoo markaasi ay sheegatay balse maxkamadda ay go'aan ku gaartay in Soomaaliya ay markaasi u go'aamiso haddaba wararkii ugu dambeeyay arrimahaas ku gadaamanayaan idiin soo gudbin doonaa iyo waliba sida Soomaalida ay uga falceliyeen farmaajo isku dayaya in olole siyaasadeed uu ka dhigto kiiska badda iyo waliba Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo la filayo in saacadaha soo socda ay shir ay ku qabtaan magaalada Muqdisho iyagoo ka hadlaya arrimaha badda Kenya sidoo kalena waxaa la filayaa in ciidamadeeda ay kala baxda Soomaaliya iyadoo ka carootay xukunka maxkamadda ee ku aadan kiiskani badda sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay Ahlu Sunna oo weerar ku ah Jaw Bureej iyo waliba dadaal iyadoo shalay gelinkii dambena la wareegtay deegaanka ama deegaana ka tirsan gobolka Galgaduud iyo xiisada Ahlu Sunna iyo Galmudug oo cirka isku sii shareeraysa qodobadaas iyo qodobo kale oo aad u xiiso badan iyo wixii soo kordhay intaynu ku guda jirnaa ayaan idiin soo gudbin doonaa balse markan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan iyagii oo fidsan aynu ku bilownay dawladda Kenya ayaa soo saartay go'aano waali oo u muuqda inay ku qiranayso in looga adkaan doono kiiska dacwadda badda Soomaaliya ee xukunkiisa la filayo Talaadada soo socda Kenya ayaa sheegtay inay diiday sharciyada ay maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ICJ u haysatay inay qaado kiiskan waxaana ay sheegtay inay ka baxday maxkamadda kaasoo inay ka baxayso ka qaybgalkeeda kiiskan Kenya waxay sidoo kale kula biiraysaa dalal kale oo xubno ka ah qaramada midoobay kala noqoshada aqoonsiga sharciyada qasabka ah ee maxkamadda ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sidoo kale sheegtay in Kenya aysan aqoonsan doonin xukun kasto ka soo baxa maxkamadda qoraalka ayaa sidoo kale kaga caawatay in maxkamadda ay dhinac u janjeerto isla markaana aysan ku habooneen inay xaliso kiis noocan oo kale ahi kiiska ayaa sidoo kale qoraalkeeda ku sheegtay in Soomaaliya ay markaasi tan iyo 1969kii isku dayeysay inay ku xadgudubto xuduudaha Kenya sida ay hadalka u dhigtay Kenya ayaa bishii Maajo sanadkan qaadacday dhageysiga oraahdeedii ugu dambeeyay ee kiiska kadib markii maxkamadda ICJ ay diiday in mar kale ay dib u dhigto dhageysiga dacwadda sida ay codsatay xukuumadda Nairobi dhinaca kalena warar soo baxaya ayaa waxa ay sheegayaan in madaxweyne Farmaajo isku dayay in olole siyaasadeed uu ka dhigto guusha kiiska badda bishan Oktoobar 12keeda waxaa la filayaa in maxkamadda caadiga ah ama cadaaladda adduunka ee ICJ ay ku dhawaaqdo natiijada muranbadeedka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya kadib 6 sano oo kiiskani u yaalay Hague inkastoo guuldaradii aan meesha laga saari karin haddana qareenada difaacaya badda Soomaaliya ee kala ah Paul Reginald Professor Philip Sandis iyo Professor Aline Bellet ayaa rajo fiican oo gaaraysa 99% ka muujiyay guusha kiiskan taas oo haddii ay dhacdo noqon doonto guul taariikhi oo u soo hoyatay shacabka Soomaaliyeed kiiskan oo 2014 ay maxkamadda ICJ geysay dawladii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud isla markaana ay lacagtiisa bixisay dawladda Imaaraadka dad badan oo qareena iyo shacabka ka qayb galeen isla markaana soo martay laba heer Soomaaliyana ay ku guuleysatay heerka hore ee ahaa in maxkamadda ay kiiska qaadi karto halka midka ugu soo baxanaya in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Farmaajo maalmahan wada dadaalo la xiriira qabashada xaflado waaweyn iyadoo laga cabsi qaba inuu siyaasadeeyo ku guusha kiiska badda isla markaana u bedelo olole siyaasadeed xogaan helnay sheegayeen Farmaajo qadka taleefanka kula hadlay madaxweynayaal hore musharaxiin madaxweyne qaar ka tirsan madaxda maamul goboleedyada iyo mas'uuliyiin leh heerar kala duwan isagoo ku marti qaaday xaflad afaneed uu ku soo aadiyay maalinta lagu dhawaaqay natiijada kiiska badda ee Oktoobar 12keedii 2021kii Farmaajo kaliya ma aha inuu damaashaad sameynayo maalintaasi guushana uu kaligiisa sheeganaya ee waxa kale laga cabsi qabaa
in taageerayaashiisa ay sameeyeen dibadbaxyo ka dhan ah dowladda Kenya iyo shacabkeeda iyadoo la kicinaya caadifada shacabka Soomaaliyeed lana soo celiyo wadaniyadda iyo qabkii lagu doortay 2017 inkastoo su'aalo ka imaan doonaan haddii farmaajo sameeyo qorshahan dabaaldega iyo sheegashada guusha kiiska badda ee Soomaaliya iyo Kenya haddana madaxweynihii hore ee muddaxileedkiisa uu dhammaaday 6 bil ka hor ayaa hadda waxa uu raadinayaa olole uu dib ugu soo noqdo guusha kiiska badda ayuuna u arkaa fursad olole haddaba halkan ka akhriso sooyaalka muranbadda Soomaaliya iyo Kenya May 1972 Kenya waxa ay sameysay heshiiska Territorial Waters 1972 oo ay markaasi ku xadiday dhulbadeedkeeda 12 nm 10 September 1972 Soomaaliya waxay soo saartay law number 37 ee Territorial Sea sharcigana waxa uu ka dhigayaa dhulbadeedka Soomaaliya 200 nm 17 September 1972 Kenya iyo Tanzania waxay isku raaceen halka uu maraxadka badda dalka Territorial Sea xilligan weli lama aqoonsan EES aaga dhaqaalaha iyo qalfoofka qaaradeedka Continental Shelf la yiraahdo 13 January 1977 Soomaaliya waxay sameysay guddiga badda oo madax ka ahaa General Maxamuud Geele Yuusuf ayna ka mid ahaayeen khubaro ka kala yimid hay'adaha dalka 1977 Kenya Territorial Waters Act number 2 ayay bedeshay waxaana ay faahfaahin ka bixisay xadka dhulbadeedka 28 February 1997 madaxweyne Daniel Arap Moi ayaa proclamation ama xeer madaxweyne ku soo saaray Territorial Sea dhulbadeedka iyo Exclusive Economic Zone oo uu la socdo qariidadeeda proclamation-ka qodobkiisa koowaad ee B ee la xiriira dhanka Soomaaliya waxa uu qorayay in hoolka iyo dhigta dhulbadeedka uu yahay Eastern latitude sort of Damascus Island Pen latitude 138 degree south Agosto 1989 Kenya waxa ay soo saartay Maritime Zone Act ay ku muujinaysa xadka EES ka la yiraahdo 26 January 1998 waxaa dhaqan galay sharciga badda Soomaaliya ee sharciga number 5 la yiraahdo 26 January 1989 sharcigani waxa uu dhulbadeedka Soomaaliya ka dhigayay 12 nm kan dhaqaalaha 200 nm sharcigana waxa uu bedelay oo buriyay sharcigii ahaa 1959 Maritime Code iyo lowgii 37 1972 9 February 1989 Soomaaliya waxay ansixisay sharciga badda ee qaramada midoobay 2008 Walad Cabdalla ayaa bilaabay in la gudagala diyaarinta xogta Soomaalida ay ku kulmi lahayd macluumaadka ay tahay in Soomaaliya inay u gudbiso qaramada midooba ka hor 13 May 2009 10 Maaj 2009 waxaa Nairobi lagula shiray wasiirka kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ra'iisul wasaare ku xigeen Cabdiraxmaan Aadan Ibraahim Ibi oo loo sheegay hawsha ay wada Norway 12 Maaj 2009 golaha wasiirada ayaa ansixiyay macluumaadka ay Norway diyaarisay iyadoo aqbalay in loo gudbiyo qaramada midoobay 7 Abriil 2009 Soomaaliya iyo Kenya ayaa waxay kala saxiixdeen heshiiska la yiraahdo magaalada Nairobi ayuu ka dhacay heshiiskaasi waxaana Soomaaliya u saxiixay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame waxaana dhaqan galay 7 Abriil 2009 nuxurka waa in lambar 1 in muranbadeedka Soomaaliya Continental Shelf and Beyond uu ku dhex jira labada dal inay isla ogolaadeen labada dal in commissionka uu eego xogtooda inay labada dal ay ka wada hadli doonaan xuduud badeedka ay ku muransan yihiin marka uu commissionka go'aanka ka gaaro kadib iyo in isfahamka uu dhaqan geliyo maalinta la saxiixay 11 June 2009 Kenya waxay heshiiska uga diiwaan gelisay qaramada midoobay inuu yahay heshiis caalami ah moogana waxaa lagu faafiyay bogga lagu daabaco heshiisyada caalamiga 2014 madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu shaaciyay sharci badeedka lowga 11 February 1989 degree
markaasi uu maxkamadda u geeyay dacwadaasi 7 Oktoobar 2015 Kenya waxay u gudbisay maxkamadda caalamiga ICJ qoraal ay ku doodayso inaysan maxkamadda xaq u lahayn inay aagto muranbadeedka ka dhaxeeya iyada iyo Soomaaliya waxaanay Kenya ku dooday in labada dal ay galeen heshiis caalami ah heshiiskaas ayaa cadeynaya habka loo abaarayo xalinta muranbadeedka ayay sheegtay maxkamadda caalamiga marka ay heshay qoraalka Kenya waxay hakisay dacwadda ilaa inta Soomaaliya jawaabteeda la helayo waxaana la isdhaafsaday jawaabo kale 2 February 2017 maxkamadda cadaaladda ee qaramada midoobay ayaa go'aan ku gaartay inay dhageysan karto dacwadda ku saabsan muranbadeedka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya xaakimka maxkamadda ayaa u cadeeyay kiiskani kadib markii ay ka hadleen sharci ahaanta dooda Soomaaliya iyo diidmada Kenya inkastoo dhageysiga dacwadda in ka badan 4 jeer dib u dhacday haddana dood dheer kadib Oktoobar 12 ayaa loo fadhiyaa go'aanka kama dambayska ahi ee markaasi maxkamadda ay qaadayso go'aankaasi dhinaca kalena arrimaha Kenya iyo badda marka hadii aynu ka baxno Ahlusunna iyo Galmudug ayaynu eegaynaa wararka ka imaanaya gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in ururka Ahlusunna uu bilaabay inuu ku sii faafo deegaano horle kadib toddobaad markii uu la wareegay magaalada Guraceel howlgalo ay sameeyeen dagaalyahanada Ahlusunna ayaa waxay kula wareegeen deegaano ka tirsan dhinaca bari iyo dhinaca koonfur galbeed Guraceel halkaas oo Al-Shabaab hore ugu sugnaayeen xoogagga Ahlusunna ku hubeysan gaadiidka dagaalka ayaa gudaha u galay deegaano ay hore u joogeen Al-Shabaab balse isaga baxay ka hor intaysan soo gaareen Ahlusunna ayaa waxay dhawaan sheegtay inay bilaabayaan howlgalo ay ugu xoreynayaan Al-Shabaab deegaanada ay ugu sugan yihiin Galmudug guud ahaan daawadayaal warkaad kala socoteen channelkan waa naga inta